cutubyo ka tirsan ururka sideedaad ee ciidanka kumaandooska xoogga dalka Soomaaliyeed ee Gorgor iyo gabdhaha ciidanka booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde qaybta ciidamada cirka ee magaalada Muqdisho kuwaasi oo tababaro dheeraad ah ku soo qaatay dalka Turkiga. diyaarad nooca ciidamada ah ayaa ka soo qaaday dalka Turkiga kana soo dejisay madaarka aadan cadde. wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda amniga taliye ku-xigeenka ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed taliye ku-xigeenka ciidanka booliska saraakiil ka tirsan xoogga dalka booliska Turkiga iyo mas'uuliyiin kale ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. soo dhaweyn iyo salaan kadib taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya General Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo ciidamadani ka tirsan xoogga dalka iyo booliska ee dalka ku soo laabtay. waxaan si wada jir ah oo farxad leh ku soo dhaweynaynaa ciidamada gaarka ah ee Gorgor iyo ciidamada gaarka ah ee Haramcad. ciidamada gaarka ah ee Gorgor difcadeeda 8aad, ciidamada gaarka ah ee Haramcad difcadeeda 15aad. waxaan leenahay si farxad leh ku soo dhawaada. waxaan rajaynaynaa juhdiga aad bixiseen iyo waqtiga badan ee laygu soo bixiyey aad soo qaadateen inaad dalkiinna ugu adeegtaan ugu soo dhalaashaan haddii ilaahay idmo shaqada la inay idmado. waxaa la inii soo tababaray ahmiyaddaana la inii siinayaa la inii soo dhawaynayaa waxay tahay baahi la inii qabo. waxay tahay inaad shaqo dardargelina ciidamada aad ku soo biirteen inaad la soo gashaan baa idinku soo dhawaynaynaa. u qaabilsanaha tababarada ciidamada Soomaaliya ee dawladda Turkiga General Erhan Altin oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in dawladda Turkiga ay diyaar u tahay inay soo saarto ciidan adag oo ay yeelato Soomaaliya. Somali'nin bu güzel gününde hem karşımda Somali'nin güvenlik güçlerini oluşturan iki grubunu karşımda beraber görüyorum. maanta farxad ayay noo tahay inaan soo dhaweyno laba ciidan oo ka tirsan ciidamada qaranka sida oo kale ciidanka militariga gaarka ah iyo weliba ciidanka gaarka ah ee Haramcad ee booliska Soomaaliyeed. taliye ku-xigeenka ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliya General Xuseen Xoosh Cali oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in ciidamadan looga baahan yahay in ay wixii ay soo barteen ku bixiyaan dalka isla markaana ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. waxaan soo dhaweynayaa ciidanka Gorgor difacadii 8aad iyo ciidanka Haramcad ee gaarka ah ee difacadii 11aad soo dhawaada. soo dhaweyn kadib waxaan rabaa inaan ii sheego ciidanka xoogga iyo ciidanka biliiska ee meetan jooga inaad timaadeen dal burbursan ee kala baahay ee argagixisa ka talisay ee meel walba ka dulaysatay inaad waxaan rabaa aad ku soo dabaashaan sidii uu horay u ahaan jiray iyo sida caalamku u yahay inaad ku soo dabaashaan baa idinka doonayaa. u bixisaan naftiinna dhiiggiinna dhan walba u bixisaan. wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Farxaan Cali Axmed oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dawladda Turkiga uga mahad celiyay kaalinta ay ka qaadanayso dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. xafladan caawa lagu soo dhaweynaya ciidamada qalabka sida ee kala ah ciidamada kamaandooska Gorgor iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad. waxaan leeyahay walaalayaal soo dhawaada waddankiina ku soo dhawaada. waxaa weeye dalkiina ayaa ladiin soo tababaray. dalkana waxaa weeye markii ciidan wanaagsan oo akhlaaq leh oo tababar leh markii la helo ayaa sharciga la ilaalin karaa. waxaa laynkaga fadhiyaa inaad sharciga aad ilaalisaan. waxaa laynkaga fadhiyaa in maxaanku idhaahdaa dadkiina hantidooda iyo naftooda aad badbaadisaan. waxaa laynkaga fadhiyaa inaad cadowga Soomaaliyeed ee soo jireenka dawladda Turkiga ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa sidii Soomaaliya u heli lahayd ciidamada ugu tayada sarreeya Afrika taasoo ujeedku yahay inay hantaan ammaanka guud ee dalka kana takhalusaan haraadiga argagixisada Al-Shabaab.